Aabe Cali Ibraahim Xasan oo muddo la dhibaataysan cudur ka halalay beerka haatanna lagu hayo deegaanka Xarxaar oo dhaca duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo halkiisa horena laga keenay dhul miyi ah ayaa dalbanaya gargaar caafimaad oo degdeg ah maadaama ehelkiisu aysan awoodin lacag ay ku geeyaan xarun caafimaad oo xanuunkiisa la tacaasha ehelka aabahan oo la soo xiriiray Shabeelle TV kana codsaday in muuqaalkiisa la gaarsiiyo dhammaan walaalaha muslimiinta ah si ay u caawiyaan intaasi kadib ayuu Shabeelle TV booqday goobta lagu hayo Aabe Cali oo in muddo ah xaaladiisu aad u liidato ayaa ka warbixinaya cudurka halalay waxayna baaq u direen dhammaan walaalaha Soomaaliyeed halkan waxa idinku sheegaynaa odaygan meesha aan ku hayno oo xanuunsan ilaahay mooyaane wax bani aadan u maqan aan lahayn ba idin sheegaynaa dadweynaha waxaan ku codsanaynaa wixii caawan ah taakuleen ah odogan si degdeg ah inay la soo gaaraan ma ku codsanaynaa wax martaanka loo qabtay daawiyo iyo midna malaha reerku wax yaala malaha beesha waa lagu rafaaday ninkan waxa idinku codsanaynaa inay soo aawisaan oo si degdeg ku soo aawisaan idinku codsanaynaa wax cuno looga soo gadama wax daawo looga soo gadama lama hayo waa iska yaala waxa loo hayo dadweynaha reerkan maanta looga soo qabanay malaha saasa noo qaflay noo khasabtay inay dadweynaha dadka aan waxay weydiino aan baafino idaadan la hariirno sidaad u jeedaan wadaadkan meesha ku xanuunsan baadiya laga keenay anagu dariskii ayaan nahay waa ilaahay dartiisa aanu soo istaagnay in la caawiyo ayaan u istaagnay xaafadda kaamkan qaxootiga u dhaxyaala saakadan waagi intuu bari hataa koob caane nin uu soo malaha wiil biyar baa la socday oo keenay wiilkiina hadda caano u raadiyay saasuu wila gaajo ku jooga wax loo soo qaadan malaha annagana hadda qaxootigaasaan joogno wax awood u ma lehinin marka danta waxay noo qalaftay inaan idaacada aan la soo xiriirnay TV-yaasha muslimiinta caalamka dalka iyo dibadda inta joogto waxaan ka codsanaynaa in ilaahay dartiis lagu soo caawiyo wadaadkaas xanuunkiisa marba ka dambaysa ayuu ku sii darhayaa jeena ma qaata jeeninka hata uu qaadan lahay wax loogu soo iibiyaan bal arkaynin marka sidaa daraateed nafaqo darro iyo daawo darro ayaa u kulantay marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in ilaahay dartiis lagu soo caawiyo lambarkaas ayuu wadaadku wataa oo wiilkiisu u haay wiil yar oo asaga la socdo baadiye laga keenay anigu dariskii meesha ayaan nahay ishaan fiirin weyne ilaahay dartiis ayaan u istaagsannahay marka adinkana sidoo kale ilaahay dartiis tacaawanu cala albirri wattaqwa inaad ilaahay dartiis ku aalmaysaan baa la rabaa lambar furu 6 22 17 46 ayuu wataa iyo lambar kale goolis ah oo furu 7 ah 82 87 67 ayuu wataa ilaahay dartiis in lagu soo caawiyo muslimiinta dalka iyo dibadda meesha joogtaan degdeg gurmad ee la soo gaar ayaan idinku codsanaynaa insha Allah taala hadii ilaahay ogolaado Aabe Cali oo la hadlay Shabeelle TV balse codkiisa aan si fiican loo maqlin xanuunka daran ee asiibay awgiis ayaa dalbaday gurmad degdeg ah aabahan Soomaaliyeed oo ku sugan deegaankan Xarxaar oo dhaca duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo haatanna maalinta ka dambaysa xaaladiisu ay aad uga sii darayso ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday in gurmad degdeg ah lala soo gaaro Maxamed Muxidiin Saxan Soxo Shabeelle TV Gaalkacyo